maxay Itoobiya iyo Kenya si wada jir ah ay isaga ilaaliyaan Soomaaliya ku soo dhawaada qaybta labaad ee warbixinteeni taxanaha ahayd. qaybtan waxaynu ku eegi doonaa dagaaladii dhexmaray qowmiyadda Soomaalida iyo ciidamada Kenya. sidoo kale waxaynu fiiri doonaa dagaalkii dhexmaray dawladda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya. waxaynu ku bilaabi doonaa dagaalkii ay Soomaalida u taqaanay xurriyad u dirarka, halka Kenya ay u taqaanay shift. waa sida ay iyagu ku dahaleen balse aan saxda ahayn. horaantii 1960meeyadii kadib markii mas'uuliyiintii gumeystaha Ingiriisku ay u ogolaadeen Kenya in ay maamusho NFD, qowmiyadaha Soomaalida ee ku dhaqan gobolkaasi waxa ay bilaabeen kacdoon hubeysan oo ay ku taageerayso Muqdisho, kaasi oo ahaa in ay ka go'do Kenya kuna biirto Soomaaliya. bishii December ee sanadkii 1963 toddobaadyo kadib markii ay ku dhawaaqday in ay ka madax bannaantahay Ingiriiska, ay dawladda Kenya waxa ay ka jawaabtay dagaaladii socday iyadoo ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo gobolkaasi lagu soo rogo. ra'iisul wasaarihii Kenya ee xilligaasi Jomo Kenyatta waxa uu si cad u sheegay in ay Kenya ay NFD u aragto qayb ka mid ah dhulkeeda, iyo sidoo kale khilaaf kasta oo gobolkaasi ka jira uu yahay mid ka jira gudaha Kenya. sanadkii 1964 Kenyatta oo markaasi noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Kenya waxa uu heshiis isdifaac ah la saxiixday Imbraadoriyadii Haile Selassie ee Itoobiya si loo xakameeyo gardarrada Soomaaliya. waa sida ay hadalka u dhigeen, balse aan saxda ahayn maadaama ay dhul badan inaga haystaan. labada dal ayaa dib u cusboonaysiiyay heshiiskan sanadkii 1979 iyagoo mar kale cusboonaysiiyay sanadkii 1989. haddii aan intaasi kaga gudubna dagaaladii Kenya ay Soomaalidu la gashay, markan waxaynu u weeci doonaa dhanka iyo Itoobiya. dagaalkii Soomaali galbeed ee socday intii u dhaxaysay 1977 ilaa 1978, kaasi oo loo garan ogaa dagaalkii 77. sanadkii 1977 ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay guluf colaadeed ku qaadeen dalka Itoobiya si ay u soo cishtaan gobolka Soomaalida ama Soomaali galbeed. duulaanku waxa uu gaari lahaa hadafkiisa haddii uusan ku dhici lahayn micnaha guud ee dagaalkii qaboobaa. waqtigaasi Midowgii Sovieti ee loo yaqaanay USSR iyo Mareykanka labaduba waxa ay ballaariyeen saameynta ay ku leeyihiin Geeska Afrika, waxayna si gaar ah isha ugu hayeen Itoobiya iyo Soomaaliya. inkastoo uu taageeray Soomaaliya dagaalka ka hor, haddana markii uu dagaalku qarxay USSR waxa uu ku dhiirigeliyay Soomaaliya iyo Itoobiya in ay wada hadal ku xalliyaan muranka. tallaabadaasi oo niyad jab ku riday madaxweynihii Soomaaliya ee Siyaad Barre. isagoo oo taasi ka jawaabaya bishii November 1977 waxa uu ka tanaasulay heshiiskii 1974 ee saaxiibtinimada Soomaaliya iyo USSR. waxa uu sidoo kale amar ku siiyay dhammaan la taliyayaasha Sofiyeetigu in ay dalka ka baxaan muddo 7 maalmood ah gudahood. waxa uu joojiyay isticmaalkii Sofiyeetiga, gaar ahaan tasiilaadkii badda ee istiraatiijiga ahaa ee badweynta Hindiya. waxa uu jibiyay xeerkii diblomaasiyadeed ee xulafada USSR ee uu hogaaminayay Cuba. intaasi kadib USSR iyo xulafadiisuba waxa ay bilaabeen in ay shaqaalaha iyo hubka u wareejiyaan Itoobiya, iyagoo dagaalka ka dhigay mid dheelitiran maadaama Itoobiya aysan awood sidaas u xoog badan aysan haynin, oo dagaalku waxay ka soo galeen dhanka Itoobiya. Siyaad Barre waxa uu filayay tallaabadiisa inay noqon doonto mid uu soo dhaweysa Mareykanka, hase yeeshee taasi ma dhicin, iyadoo oo markii dambe uu Siyaad Barre ciidamadiisu ku amray inay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya bishii Maarso 1978. jabkii dagaalkii Ogaadeniya waxa uu sababay qalalaase siyaasadeed oo baaxad leh, kaasi oo ka dhacay Soomaaliya, wuxuuna beeray burburkii dowladdii uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre iyo guud ahaan qarankii Soomaaliyeed. maadaama ay dowladdii militarigu burburtay, waxaa bilaabmay shirar loogu magac daray nabadeynta Soomaaliya. burburkii taliskii Siyaad Barre kadib 1991 maamul la'aan jirtay awgeed iyo khilaafaadka gudaha ka jiray, waxaa bilaabmay in Soomaaliya lagu tilmaamo waddan fashilmay. magacaabistani waxay dhalisay
dadaallo badan oo heer gobol iyo heer caalami ah si loo xalliyo dhibaatada waddanka ka jirta. Kenya iyo Itoobiya ayaa udub dhexaad u ahaa dadaaladan. Labada dalba waxa ay martigeliyeen shirar badan oo loogu hadlayay arrimaha Soomaaliya. Inta lagu guda jiray xilligan, waxa ay faragelin militari ku sameeyeen dalka. Xilligaasi Addis Ababa iyo Nairobi waxa ay ka wada shaqeeyeen kicinta dhismaha dowlad cusub oo Soomaaliyeed oo aan khatar badan ku hayn danahooda siyaasadeed iyo kuwooda amni intaba. Sanadkii 2004, Kenya, Itoobiya iyo quwadaha kale ee gobolka dadaalada ay ku doonayeen in ay ku soo dabaalaan nabad iyo xasilooni ka dhalata Soomaaliya waxaa ka dhashay samaynta dowlad federaal oo ku meel gaar ah, waxaana madaxweyne loo doortay Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Tani waxay ahayd natiijo ka farxisay Kenya iyo Itoobiya labadaba. Yuusuf waxa uu qaxay Itoobiya kadib markii uu ka qayb qaatay afgembigii dhicisoobay ee ka dhanka ahaa Siyaad Barre 1979. Waxa uu 10 sano ahaa nin aad loogu kalsoon yahay Addis Ababa, taasoo keentay in Cabdullaahi Yuusuf ay inta badan dadka Soomaaliyeed u arkayeen wakiilka Itoobiya, balse ugu dambeyntii waxa uu iscasilay sanadkii 2008. Halkaa ha inoo joogto qaybta 3 ee warbixinteennii maxay Kenya iyo Itoobiya ay si wada jir ah isaga ilaaliyaan Soomaaliya.